kuwa kubadaha ciyaaro iyo kubaddu maxay tahay waa laastig hawo lagu shubay soo ma kuwa waxa dheeldheela ee noloshoodiiba waxa ku dhamaystay ay dhalinyaradeenu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiyaan gaal waliba gaalnimadiisu waxa u sii dheer waa shahawaani laastiga yar ee hawada laga buuxiyey ayuu wax isku mooday oo isku qiimeynaya markaas dhalinyaradeenu ku dabalumeen waxaad ogaataa dhageyso almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyaamah bu nabigu alayhi salatu wasalaam nin baa u yimid nabiga oo yiri nabi allah nin baa dad jecel laakiin darajadoodii amalkooga ma sameyn karo ee nabi allah maxaad oran lahay markaa buu nabigu cidda uu qofku jecelaado qiyaamaha la joogsanaya buu meel hadaad ku heesa aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi hadaad kuwa kubadda ciyaara aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi hadaad siyaasi jeclaato qiyaamaha siyaasiga la soo bixi hadaad qabiil jeclaato qiyaamaha qabiil baad la soo bixi hadaad culimada rabbaaniyiinta jeclaatana yaka qiyaamaha la soo bixi hadaad Abi Bakr iyo Umar jeclaato Abi Bakr iyo Umar baad qiyaamaha la soo bixi hadaad Nabi Muhammad jeclaatana Muhammad alayhi salatu wasalaam baad la soo bixi insha Allah dhahada marka dhalinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii Qays ee waalaa uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisa loogu yimiday markaas mid walba leeyahay warda Qays waa aniga markaas la dawaqay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gad simadaad boqorkii baa loo noqdo leeyay boqorow meeshii nin kaliya ma fadhiye 20 baan helay 20 nin oo wada Qays ku yahay anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabo ninkii 20 buu noqday waxay tirin ana garan Qayskii dhabtaha aniga garanaye nin walba soo qaado qol ku xareeya qol baa lagu xareynaya qol dhageysta waad maqlaysaan insha Allah markaas nin walba qolka lagu xareeyay waxa loo geynayaa nin xoog leh oo seef wata ayaa loo geynayaa markaas su'aal baa la weydiin oo la leeyahay ma Qays baa tahay markaas uu leeyahay Qays baan ahay ana Qays waxa kale waa beenaalayaal markaas uu leeyahay haddaad Qays tahay oo Leila aad jeceshahay waxay ka tiri jirkaaga badh ii soo goo wala Musa wal qasashana kii horeeya loo yimid ma Qays baa tahay Qays baan ahay le laba nin xoog la loo keeno seef wadata moogtahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay lama baxsan karo ma Qays baa tahay gabadhii waxay ku tiri haddaad Qayskii dhabta aad tahay jirkaaga badh ii soo goo bay ku tiri halkeen u goynaa noo dhib ha goynay markaas uu war Qays ma yihiin hadarid sidaayo albaabka uu ka baxay وصل يا حبيبي mid bamar sidii loogu iimanayo mid walba uu lahaa war Qaysna ma yihiin adarisiidaya ilaahay da taqaanaan oo halka uga baxayay ayaa isagii dhabtaha baa la dul yimid oo la soo taagay wa Qays baa tahay markaas uu insha Allah aniga Qays kuwa kalena wallahi waxay yihiin garan maayo meesha bay igu imaadeen oo gabadha waa jeceshahay waan jecelahay iyadoo way jeceshahay da waxay ka tiri jirkaaga badh ii soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu ayada ku noqdo ku dhahada halkee baad jecesho ku soo gooya ka dhahada buu markaa bay tiri Qayska dhabta waa ka ii soo saaray bay tiri maxabada ku hore maxay hayd baan maxabada ninkana nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam waa nabigeeni waa rasuulkeeni waan jecelahay laakiin dhalinyaradeenu maanta ma John iyo Bomb bay u egyihiin mise Muhammad bay u egyihiin bali sheega ya ma John iyo Bon iyo Tyson iyo shaydaan bay u egyihiin mise Muhammad iyo Umar iyo Abu Bakr bay u egyihiin hada تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جعيلك أد شيغانيسو إن ليدهي
إلهي وأن جعلهي وأن آمن سنهي ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأن جعلهي وأن آمن سنهي وحي جعيلته أي سحن قنيسا وأمرك النبي محمد أتقضيته يهود بقى اللي قد محبة كلية محبة قولية يهود بقى إلهي كديدي وحير هذين إلهي أنك وأن جعلهي مرقاسا إلهي سودجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا محمد وعد كتر هذا نمك يهودين حجاتيك وإلهي جعل وعد كتر هذا هرتاني قيس ورعك إلهي جعل دي سواحد دليل برهان كأه اتباع محيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيا معشر الشباب لن يرادوا بدته المجلس كان فريست إن شاء الله دقاقة جوجية كيف سعودنا فريسية إنكم رجنا واوين خير باين نقاب مقدر دين جعل بعد مسكيتك وصو عمرتين لكن جعل كواحد قدرنا عمل فلكي ما قدرنا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيرة دي سام برانينا سورة دي سيبان يلانينا سورة دي سوا معي قابك نبينا ودق ميبان ودق مينا سيرة دو ودقن كيسي قابك ودق مايي قابك ودق مايي جار كيسان جارك ودق مينا قابك ريريس ودق مايي ريريهن ودق مينا قابك دليرد ودق مينا دليردن ودق مينا قابك مساكين ودق مينا مساكين ودق مينا قابك النبي مجتمع ودق مايي أيان مجتمع ودق مينا نبينا عليه الصلاة والسلام ما عرون جرين ما عيتم جرين ما الحن ما فريسان جرين هذا الحن كما هل جرين حديث وضد ودلي ما دنا صدح جرب النبي سلام جرين ضد كاس هذا النبي عيدو تمادو وحق هذا بأي كجت ما دي الله اللان قرت النبي ما قالوا عينين ولكن النبي سجى قفك وده جلسنا يقابل عليه هذا النبي قف سلام ينا قعدت مديك بكو سلام جري هذا قف وحسين ينا قعدت مديك بكو سين جري هذا عيد وحكا قادنا ينا مديك توكا قادنا يي هذا عنت عنا ينا مديك توكو عنا يي هذا بيا عبا ينا مديك توكو عبا يي هذا مسكيت كسوق لا يو مديك توكو سوق لا يي هذا أقل جيس أقلا ينا دعاء الله خرسو النبي يقولها هذا در حنان ينا حقوك بلا باي بدكت در قاضي شدا در حين شدا مدكت وكو بلا بجري در كمركو سيبي ينا بدحدو النبي سيبي جري كما مركو حدنا مدكت يقلن جري مركو سيبي ينا بدحدو هو الرئيسين جري رسول هذو تما اسكحير ينا حقوك بلا باي بدكت إن يرى تمها إن لقى حيرة إن اللود دايب النبي قارك صلى الله عليه وسلم بركاب النبي عليه الصلاة والسلام كي يرابو يري أبيه مي يقول يا رب الله يا ري أما تمها كولا حير أما تمها هو داب النبي كويري عليه الصلاة والسلام أما تمها ها كولا حير أما تمها maalmahan waxaan arkay kuwa timo waaweyn timihii barigii hore afroogi yaan dhalinyarada ka arkay kuwaasaa la qaatayba imika warba tima haddaad daynaysaan iska daaya xiirine ama wada xiira buu nabigu leeyahay ama wada daaya waa dhaqankiisi waa dhaqankii islaamka inaad nabi maxamed ku dayataa waa diin inaad gaalo ku dayataana waa diin la-aan بدحدا وحبا كما عونين كما نعبين بدحدا وحا لوغو تلقلي زولي قال لغو قلا بدحدا وحا لوغو تلقلي عورada marka la meedaya ayaa lagu meedaa بدحدا وحا لوغو تلقلي saxarada la iskaga biiya بدحدا وحا loogu talagalay qandhuufta ayaa laga tufaa بدحدا وحا loogu talagalay wixii aan wanaagsanayn
wixii wanaag oo dhan midigtu nabigu isticmaalay duu seexanayo xaguu seexanay midigta maxaa midigta lagu seexanaya wadnaha bini aadamku bidixdu ku yaala dhakhtaradii baa imika kule waxa xaqiiqo oon helay bay ku leeyihiin dadka midigta u seexda ka caafimaad badan dadka bidixda u seexanaya sababtu waa maxay bidixda wadnaha bini aadamka ayaa ku yaala haddii bidixda loo seexdo culayskii miisaanka ku dhacaya wadnaha waxa qofkaasi halis u yahay inay gacan iyo lugtu ay baqtido hadda iyaku sheegeen cilmiga walaakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 sano ka hor ayuu inoo sheegayaa uu leeyahay haddii midkiin habeenka uu seexanayo xagga midigta ha u jibsada buu rasuulku yidhi gaaladu moogtahay markay zuuliga galaan biyaskagama dhaqaan warqadun bay ismariyaan marka xagga way ka cad yihiin xagga dambana way ka urayaan dhakhtaradii jarmalka ugu qiimaha badna adduunka ayaa waxay dadka kula taliyaan hoteelada iyo meelaha dadku ay ku kulmaan ee zuuliyada laga sameeyey dadka biyo u dhigay bay leeyihiin waayo waxaan ogaanay dadka muslimiintu inay ka caafimaad badan yihiin kuwa gaalada ah weliba xanuunada inta badan duburka iyo cawrada ku dhaca waxaa la ogaaday gaalada inay ku dhacaan ay ku badan yihiin muslimiinta ku yar yihiin sababtu waa maxay dee qofka muslimka maalintii imse jeer buu hoostiisa maydhaya diintan islaamku waa diin dadnimadaday dhisaysaa nadaafaday ku dhisaysaa iimaankay ku dhisaysaa akhlaaqday ku dhisaysaa lidaalika dhallinyaradeenna waxaan leenahay wiilal iyo gabdhaba waxaan ku talinaynaa nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han jeclaanno oo dhaqankiisii iyo hadigiisii han raacno oo diintii inoola yimiday han baranno imaam ashaafici raximahullah ayaa wuxuu lahaa dardaaran cajiiba maqaalo cajiiba wuxuu yidhi ninkii adduunyo doonayo cilmiga baro ninkii aakhiro doonayo cilmiga baro ninkii guul doonayo cilmiga baro ninkii sharaf doonayo cilmiga baro ninkii adduun iyo aakhiro doonayo cilmiga diinta baro limaada barashada diintaada aad barato waxaad ku noqonaysaa qof wanaagsan baad ku noqon